jaamac siyaad ma oqoon inuu saxaafadda iskaaf lagaadeeyo isku xagxagto labada qofna ilaahay baa siiyay nasiibkooda siiyay hal kale xishoodaan leeyahay nin waliba waqtigiisa ha sugo kii haatan hore fadhiyana hadii ilaahay ku rayaad baa ku hambalyeynana shaqo fiican baa soo qabatay kuwa yimina aad baan ugu soo dhaweynaa hadii aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa ilkaanu waxa ila tahay laba qof weeyo jaamac siyaad gaari maayo nasiibka ilaahay iyo calaf baa siiyay nasiibkooda iyo calaf ayaa siiyay sida hal loo qaato hana loo arko xaqxaqashada iyo xumaantana hal la iska daayo jaamac siyaadna inta facebookyada iyo midiyaha ka hadlaysan leeyahay aan wada taageero wasiirkan waxa leeyahay maanta waa musharax Cabdillaahi Cali Xirsi waxaan leeyahay maanta waa musharax weey musharaxeena taageero hadaynu jaamac siyaadnahay isaguna waxa aynu wada nahay nala qaato oo aan wada shaqayno oo aan isogaano wasiirkan saasan leh maanta waa ku ognahay inaynu isogaanaa loo baahan yahay waxaanu nahay jaamac siyaad ku soo saar leh anaga weeye beelaha kalena waxaanu leenahay waray maanta hana looga tanaasulo in badan baanu beerka u soo jeebnay hana looga tanaasulo maanta hana loo daayo ninka timcad hana la soo saaro hartida saasaanu leenahay harti oo dhan saasan iyo dhubaantaba dhammaan saasaanu leenahay dhamaantood saasaanu leenahay waxaan hadal kaga baxayaa xafladatan maanta waxa dhigay Cabdiraxiin Warsamo Diiriye nimco Cabdi Caarsina waa ka horeysay dhamaantood labadaba xafladu kuwa damana waa dhigi doonaan idinkana waxaan idin leenahay tolkiin waxay la tahay tolkiinu baad warhabsanaysaan mid dambena waa la ka sugi doonaa waa arintaana aad iyo aad baanu idin la shaqayn doonaa hadii Ilaahay ka dhigo xilka weyn la idin saaray Ilaahay ha idin fududeeyaan leenahay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa jaamac garaad Ismaaciil garaadka waxaan leeyahay beeshaadii wixii aad noo dirtayna soo horena kuugu hadana soo saaray waxa ka dhiman aday kugu taala jaamac siyaadna waad aragtaa nin gidaar yar ku naban waxba laga dhageysay laakiin jaamac siyaad weyne cuqaashi aad wax u dirtay warkooda horena kuugu hadana waana ka hadlana adigana saasaan ku leeyahay halkan waxaan soo gudbinayaa ogeysiis aniga oo Axmed Cabdi Gaas waxaan ogeysiinayaa maamulka Puntland madaxweyne ku xigaha guddiyaha abaabulka doorashada waxaan ogeysiinayaa muddo badan oo hadda 10 sano ilaa 12 sano Puntland maamulkeeda hadduu yahay wasiir hadduu yahay shaqaale kale hadduu yahay baarlaman waxa haystay oo gacanta ku haystay dad aad moodo inay dhaxal u qaateen haddii aanay ahayn dhaxal amase mulkiyad dad gaari leeyahay uu yahay xaalad dawlad dhaqanka dawladda ku socota adduun weynaha dhaqankiisa leh maamulka la soocan leh waxa aan halkan ka hadlaynaa annaga oo odayaashii cuqaashii jaamac siyaada oo ay leedahay jaamac siyaad 10 oday buu lahaa 10ka oday ninka la yiraahdo jaamac Cabdi Bile 10 sanadood waa ka maqnaa baarlamanka Puntland buu ahaa maantana waxay ku jiraan ole jaamac siyaad bay hor taagan yihiin jaamac siyaad bay xumaynayaan jaamac siyaad bay dawladda ka fogeynayaan jaamac siyaad haddaanu nahay cuqaashii oo maanta 8 iyo odayaashii beesha waxaanu soo doorannay aan leeyahay dadka
xilka haysan jiray ee mulkiyadda ka dhigtay waxaanu leenahay maamulka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigaha iyo abaabulka guddida howlqabadka in dadkaa nalaga qabto oo nalaga celiyo naga hortaagan maamulka iyo dhaqankiisa. waxaan ogeysiinayaa ninka la yidhaahdo timacadde ee ah wasiirka arrimaha gudaha reerka jaamac siyaad adiga ayaa oday u ahaa adaa wasiiru ahaa magac jaamac siyaad baad ku shaqaynaysaa wararna waa naga soo kaa gaadheen qaladka ay ku socdaan dadka uu abaabulayna jaamac cabdibile badho saabka aad dhowaan dooratay ee qaladka ku socda dadkaa waxaanu ku leenahay haddii aadan raalli ka ahayn wax ka qabo googoynta jaamac siyaad iyo kala taagga jaamac siyaad yaanu adiga ku sanacsan yay ku sanacsan. waxaan leeyahay annagu waxaanu soo doorannay annaga oo 9 caaqila oo kaa reer cali maxamuud dee hadduusan afaf kale yeelan uu nagu jiro waxaa la soo doortay oo loo soo doortay baarlamanka puntland ee cusub waxaanu haddaanu jaamac siyaadnahay cuqaashiisii oo 9 haddana 8 ku wada fadhiya soo doorannay iyo odayaashii waxaanu soo doorannay ninka la yidhaaho cabdi warsamo diiriye oo nin weyna oo mutacallina oo dhaqanka dawaa'irka yaqaan iyo gabadha la yidhaahdo nimco cabdi caarshe oo howlqabad ah diyaarna u ah wadaniyada iyo shaqada maamulka puntland beel baanu nahay jaamac siyaad baanu nahay 108 sanaan joogaa 80 wax yar baa ka dhiman 2 gu iyo inta aan shaqaynaya caaqilka ahaa inala ka sheegto maamulka puntland ma aha inala ka sheegto in laga dhigo dhaxaltooyo in mulkiyad laga dhigo in lagu kala dambayn waayo ma aha hawshaa adigaa jooga kuwa imanayana adaa oday u ah kuwii hore tegayna odaybaad u ahayd maanta yay muuqan hawl shaa kala goynta iyo kala tagga iyo qaylada iyo kala go'a jaamac siyaad yaanu aana u noqon laguna tilmaamin cabdilaahi cali. waxaan hadalka ku soo ururinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigaha iyo guddoomiyeyaasha abaabulka hawsha baarlamanka waxaan leeyahay oo idinku celinayaa hawshaasu haddii ay dhaxal tahay oo dad gaari leeyahay idaacadda aan ka dhegaysanno idaacadda aan ku tashanno yaa awalba ma aanu hayn baarlaman jaamac siyaad dadka dowladaha u shaqeeye labada dhinac u shaqeeyaana dhaqanka jaamac siyaad ma dhaqaan kama xishoodaan ma ururiyaan wax ma taraan howlaha uma daayaan cadowga kalama hadlaan waa ognahay waxaa baanu filanaynay oo lahayn waxbaa idiin kordhaya war degdega aan idinka helno madaxweyne ku-xige guddoomiyaha qolada guddida baarlamanka qabanqaabada aan war degdega idinka helno hadduu dhaxal yahayna waa ku tashanaynaa hadduu yahay qaab dowladeed oo wadaniya oo kala dambayn leh oo xishood leh oo dhaqanka dawaa'irka ku dhaqmayana
aan dhegaysanno waxay tidhi cuqaasha jaamac siyaad waa somalilan labada qofna waa somalilan haddii aanu somalilan nahay maxaa naloo xidhxidhayaadoo naloogu muusanaabayaa waxaanu leenahay somalilan maanu ahayno dad wadaniyaanu ahayn reer laascaanood baanu nahay laascaanood baanu ku dhalannay waa ku dhaqannay waxaanu leenahay maanta iyo maalintii wax xumaana oo aanu u geysannay jaamac siyaad u geystay oo ragga iyaga halkaa joogay cuqaashay u geysateen buntland u geysannay ma jiro beenta iyo qurmuunka iyo kala tagga iyo googoynta wuxuu ka socdaa Garowe haddii aanay iyagu nagu kallifin wadooyinka xunxun ragga halkaa jooga ee annaga ahi iyagaa abuuraya kala tagga iyo qaybinta iyo mulkiyad sheegadka iyagaa qaybinaya labada qofna gabadhu waxay degan tahay Garowe waa taqaaniin Garowe ku leedahay oo guriga ku leedahay ninkuna waa wadani dhalashadiisu ha ahaato waxbarasho inta adigu da'diisu tahay wixii ka waxdan waxbarasho ahaa haddana waxa uu ka imanayaa oo uu ka yimi oo ka soo doorasho tagay maxay ahayd federaaliga xamar maba yaqaan waa uu maqlay Somaliland baa jirta waayo Somaliland aniga hadda aad haysaan oo ay maqlaysaan oo aad madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigay iyo gudiyihii tihiin shahaadooyinkayga waad haysaan waa haysaan haddii aydan ku raacsanayn waxaan leeyahay ogeysiiya adduun weynaha qaldaadka ay ku socdaan dadka jaamac siyaad ka degan meesha la yidhaahdo Garowe ee jooga in ay yihiin dad hortaagan dhaqanka iyo howlqabadka buntland haweeneyda ajigeed ayaan xafladan ay ku saabsan tahay oo aanu taageerayno lagu sii ambabixinayo xafladihii hore ee goobtan lagu qabtay looguna hambalyeynayay labadii xildhibaan ee goobtan haddii ilaahay idinkeedilay cuqaasha beeshu ay ku soo magacaabeen iyadoo arrintaa in badan la sugayay waqti badanna haddii ilaahay idinka la fiirinayay tartan badani ka dhacay waxa lagu yiri anigu warda ma joogin sidii baarlamaanka yaa waxa ka dhacay baa fartaag baa wax la yiraahdo ka dhacay cuqaasha wal waxa hore kuma shaqaysiin jireen walba geed buu mid ku siin jiray cuqaashu arrintaa way isaga timi way ka wanaashaqootay haddii ilaahay idinkeedilay waxay arrintaa ku soo gabagabeeyeen labadii shakhsi ee haddii ilaahay idinkeedilay nasiibkooda uu siiyey ninka la yiraahdo cabdiraxiin warsamo diiriye iyo haddii nimco cabdi caarshe waa idiin hambalyeynanaa hambalyaanu leenahay waxaanu leenahay qolada cusub soo dhowaadaanu leenahay soo dhowaada tolkiin ku soo dhowaada xilka laydiin gartay ee tolkiin idiin magacaabay ku soo dhowaanu leenahay qoladaas sidaasaan leeyahay qoladii hore ku sii dhaweeyay waa u hambalyeynanaa iyaga laftooda waayo waxay ahaayeen dee uun xubno ka tirsan beesha waxaana qabiil baale qabiilkana xilku waa meerto maantana nin baa haya berina nin baa qaban doonta waxaanu leenahay iyaga laftoodana waa idiin hambalyeynanaa mar haddii waqtigiinu dhammaaday dee waa idiin hambalyeynanaa wax kaloo haddii ilaahay leeyahay dhibaato oo hadeer dee jaacsi dhex yaalla ma jiro labadaa xubnood ee la doortay ee loo doortay xubnaha Puntland waxaanu leenahay xilka laydi saaray sida laydiin saaray kaga soo baxa annana waa idinku hambalyeynanaa tol idinku garab joogana waanu nahay waxaan hadalka kaga ambabaxayaa waxay la tahay dadka cuqaasha beeshu hawsha ay dee soo gabagabaysay ee haddii ilaahay idinkeeda leeyahay fartaaga gaadhay in ducaynta
iyo haddii la kale saxaafadaha in laga daayo qabiilnimana uma wacna qarannimana uma wacna dadka lafta meeshiisa aynu geysanayna uma wacna waxaan leeyahay labadaa xubnood jaamac siyaad ma wada heleen laba qof baa heli lahaa inama wada gaadheen hal laga daayo ducaynta dhammaan aan u hambaliyayno innagoo garba iyo baalalo ah aan geyno meesha loogu talagalay waxaan hadalka kaga baxayaa waxaan leeyahay ilaahay idinkana labada xubnood xilkaa la saaray ballaaran ilaahay haddii la idinkeedii leeyahay idin fududeeyo ilaahay saasaanu ka bareenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu halkan uga tahniyadeynaynaa ku soo dhawaynaynaa cabdiraxiin warsamo diiriye xildhibeenka Puntland iyo nimco cabdi caarshe waxaanu leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada ilaahay ha idinku garab galo annana raalli baanu ka nahay intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay waa laba qof oo jaamac siyaada oo cuqaashi anigu maanta koofiyadii way iska dhigay oo waxaan isaga dhigay markii cuqaashi la xagxagtay oo nin waliba nasiibkiisa uu yiri kaas aqliga ma aha ama kalsoonidii baan kala noqday waxaan idhi waxba horta hadeerto halka ha ku faradiin iska badhig balba horta bahashatan mar haddii la isku xagxagtay waxaan leeyahay horta jaamac siyaad hadaynu nahay sidaa ma aynu hadli jirin hal kala xishoodo waxaani waxa weeye wax yar oo laba qof oo weligoodba kuwana joogi jireen kuwana doori jireen waxaan leeyahay kii joogi jireyna wixii uu ka soo qaatay waa laynaga badiyaado waxa la yidhi dumarku meeshay ka unsan jireen haddayan ka unsan waa gubataa baa la yidhi qofka dumari siyaasadda haddeer dad badan baa ku soo biiray karma dhacays waayi mayso waxaan leeyahay hal kala xishoodo oo ha laysu haniyeeyo oo yaan la isdabagelin maalin walba waa joogtaa aqalka yaan la dabagelin garaadka yaan la dabagelin nin garboodka yaan la dabagelin wixii ilaahayna doc wax ka soo maraa ma jiraan qof waliba nasiibkiisa iyo calafkiisu helaya yaa raayix laa tafadeexa baa la yidhi ka tegayo ceeb xajicsiman waxaan leenahay waray hal kala xishoodo ilaahayna talada ha loo daayo waa yeelka aad wuxu dhiibateen ha loo daayo ciddii waxashay ha loo haniyeeyo rag iyo dumar mid kastaba ha ahaato dumarkuna horena waa u joogi jireen haddeerna waa ku soo biireen allowna waa maqlayay buu la taagtaagayana waa arkay maanta maaha ugub maaha waa curad dhowr sannadood baa kuwa fadhiyeen oo ay ragga dhaameen oo aan ku ammaanaya kuwa kalena waa ku soo biireen waxaan leeyaan la isaflagaadayn hal kala xishoodo waana u haynaynaa annagu waana ku soo dhaweynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi tawfiiq وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته taageeradii xildhibaanadii loo doortay Puntland ninka leeyahay Cabdiraxiin warsamo diiriye iyo nimco cabdi caarshe cuqaasha beesha jaamac siyaad oo kala reebayay tartankii jaamac siyaadka faraha badan galeen labadii qof ay u garteen cuqaash annana go'aankii cuqaasha ayaanu qaadanay sidaasaan ku taageeraynaa labada la doortay ilaahay iyagana xilka ha u fudaydiyo kuwa dalkiiyo dadka anfacana ilaahay ka dhigo waxaanu kaloo leenahay qoliyihii hore u fadhiyey dee walaalayaal haddii aad xilligu waa meerto xilku waa meerto ilaahay idinkana intii hore ha idinku anfaco kuwana kuwa ka dambayn doona haddii ilahaydmo ha laysu haniyeeyo aad iyo aad waxaanu u soo dhawaynaynaa labada qof ee loo doortay nimco cabdi caarshe iyo cabdiraxiin warsamo diiriye ee cuqaash beeshu u dooratay ayaanu ku soo dhawaynaynaa annaguna taageero buuxda ayaanu ku taageeraynaa ku soo dhawaada walaalayaal ilaahay kuwii dadka anfacana haydinka dhigo sidii odayaashii hore sheegayeen iyaan laysku xilka waa iska meertee maalintaa ka waxwaayow u haniye walaalkaa u haniye maalinta damaad adiguna iska heli doontaa dhibaato male xilku waa iska meerto maalinba qaar baa fuulaya maanta kuwana loo gartay cuqaasheennii iyo waxgaradkeennii baa u gartay annana waa ku soo dhawaynaynaa waa ugu tahniyadaynaynaa wabilaahu tawfiiq taageerina waxaanu leenahay
lala hadaliyado waxa la idin kula hadlay sharafta qabiilka iyo sharafta mas'uuliyiinta wixii aynu dalka ku leenahay hal ilaaliyo deer dhaqanka ma lahayn cun iyo cumbuur reerku ku noolaa oo ku dhaqan yahay hadda isagu inbuu mudan yahay hadda ninka la yiraahdo Cabdiraxiin Warsamo Diiriye doorkii hore waa laga helay kanuu isu soo sharaxay isagoo raaliya nasiibkii baa siiyay dalka iyo dadku isaga eegayaan labada qof waxaanu leenahay xigaalka yaan lagu kala cabanin wixii dadku magaca magacu wada leeyahay laakiin manfaca waxa laga yaabaa qof baale laakiin xilka ninka fuulaa labadaba waa laga doonaya nasiibkiina way reerku wuxuu ka qayb galaa halka xigaal weyna waxaanu leenahay sidii reerku ahaan jiray ama taariikhdiisu tahay ama nidaamkiisu yahay hal ilaaliyo oo hal isu tanaasulo hal isu xilqariyo oo gobonimada hal ilaaliyo intaan qabiilkaan leeyahay labada qofna waxaan leenahay xigaalkiina waa idin gartay nasiibkiina waa wacan yahay hadhub weyna waa laydin tolanaya in xilka waa laydin saaro ummadda iyo dalka laydin eegayaa sidaad ka yeeshaan idinkana waana idin ducaynaa insha Allah in Allah idinku barakeeyo mar labaad waxaan salaamayaa wixii jaamac siyaada ee aragayga iyo muuqaalkayga iyo dhageysigayga maqlan waa salaamaya waxaan halkan uga hambalyeeynaa Cabdiraxiin Warsamo Diiriye iyo Nimco Cabdi Caarshe xilka nasiibkoodu siiyay waxaan leeyahay ninkii xilka hore u hayay ama kii laga helayba ha noqdee wariyaan la isxagxaganin oo jaamac siyaadka Facebook la dhigayo war ha laga daayo oo ninkii wax kala wax tirsanayo dee meel kale ku banaanay meel kale u leexo dad kale ama bari iyo galbeed baa leeyahay kala hada ama baha jaamac iyo cali faarax baa leeyahay kala yiraahdaa meelahan kama maqlayadow iska daaya hadii ka fadlina ciyaartan jeerto dee mar kale ay mar dhinac kale u jeedina waa jirtay waxaan leeyahay hal la isu hambaliyeeyo oo hal la isu tanaasulo waxaan leeyahay Cabdiraxiin Warsamo Diiriye Nimco Cabdi Caarshana soo dhawaada waxa dhiiqdaan dee waa la inaga dhureeyay ninkana kuwii horena waa la ogaa beesha jaacsiyaad oo ay u horeeyaan cuqaashu iyo aqoon-yahanka iyo nin garboodka iyo dhalinyarada ujeedada aanu halkan isugu nimi ee xafladan loo qabtay waxa qabtay tii hore waxa qabtay Nimco Cabdi Caarshe waadnad miidiyahaad ka aragteen inta daawanaysa tanna waxa qabtay Cabdiraxiin Warsamo Diiriye labadoodaba waanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa xilka tolkood uu intii tartamasay ku kala saaray iyaga u gartay intayadan hadeer halkan joogtaana waxaanu ku tahniyadeynaa oo ku soo dhaweynaynaa labada dhalinyarada ah ee maanta freeshka ah ee aqligooda iyo maskaxdooduba ay cusub tahay intii horeba waa la tijaabiyay ninba wixii uu gooyayna waa la garanayaa iyagana waa soo dhaweynaynaa insha Allah biidnillaahi kariim waxaanu rajaynaynaa in ay noqdaan kuwii aan tolkood ku khasaarin ee ay wax badan tara ayaanu rajaynaynaa aad iyo aad baanu idin salaamanaa waa idin soo dhaweynaynaa ducana waa idin raacinaynaa waxa jirta ilaahay ha idinka xijaabo waxaanu idin leenahay ku guulaysta annana waa idinku hambalyeynanaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lagu maamuusayo Cabdiraxiin Warsamo Diiriye iyo Nimco Cabdi Caarshe cid allaaliya cidii ka soo qayb gashay haday tahay cuqaasha haday tahay nin karboodka haday tahay warbaahinta waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan kaloo salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxa ay raacday intaa annagu haddaan nahay cuqaasha beesha jaacsiyaad annagoo midaysan baa waxaanu soo saaray labada ruux ee dhalinyarada ah Nimco Cabdi Caarshe iyo Cabdiraxiin Warsamo Diiriye waxaanu la mid nahay 66 xildhibaan ee Puntland cuqaashi soo dooranaysa in bay kuwana la mid yihiin cuqaashi beesha jaacsiyaad baan noon soo dooran cid waliba horta sidaa u ogaato dhammaantoodna beesha jaacsiyaad waxa weeyaan haday tahay nin karmood iyo cid waliba way taageertay cuqaashina waad arkayseen waxa inta ay raacda waxa weeye musharax madaxweynenimada qoladii horeysa waa sheegtay waa Cabdilaahi anu Cabdilaahi oran maayeen cid kasta ha noo timaade
haddaannu nahay beesha jaansiyaad beelaha waaweynee dhulbahantaanu ku jirnaayo shalay baanu lahayn maalintii hore ayna dhaaftay baanu lahayn maanta waa u taaganna marka waxaanu leenahay cid kasta ha nagu taageerto waa u taagannahay maanta xaq baanu leenahay waa taaganna waa doonaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilkanu waxay la tahay laba qof weeyo jaamac siyaadana gaari maayo nasiibka ilaahay iyo calaf baa siiyay nasiibkooda iyo calaf ayaa siiyay sidaa ha loo qaato hana loo arko xaqxaqashada iyo xumaantana ha la iska daayo jaamac siyaadna inta facebookyada iyo midiyaha ka hadla sidaasaan leeyahay aan wada taageero wasiirkana waxaan leeyahay maanta waa musharax cabdilaahi cali xirsi waxaan leeyahay maanta waa musharax weeye musharaxeena taageero haddaynu jaamac siyaadnahay isaguna waxa aynu wada nahay nala qaato oo aan wada shaqayno oo aan isogaanno wasiirkana saasaan leeyahay maanta waa ku ognahay inaynu isogaannaa loo baahan yahay waxaanu nahay jaamac siyaad kuwii soo saar lahaa annaga weeye beelaha kalena waxaanu leenahay waray maanta ha noolooga tanaasulo in badan baanu beerka u soo jeefnay ha noolooga tanaasulo maanta ha naloo daayo ninkaa timcad ha nalala soo saaro hartina saasaanu leenahay harti oo dhanna saasuna iyo dhubahanteba dhammaan saasaanu leenahay dhammaantoodba saasaanu leenahay waxaan hadalka kaga baxayaa xafladatan maanta waxaa dhigay cabdiraxiin warsamo diiriye nimco cabdi caarshina waa ka horraysi dhammaantood labadaba xafladu kuwa dambena waa dhigi doonaan idinkana waxaanu idin leenahay tolkiin dee waxay la tahay tolkiinunbaad waraabsanaysaane mid dambena wax dambena waa laydinka sugi doonaa waa arrintaana aad iyo aad baanu idinla shaqayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo xilkaa weyne laydin saaray ilaahay ha idin fududeeyaanu leenahay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa garaad jaamaca garaad ismaaciil garaadka waxaan leeyahay beeshaadii wixaad noo dirtayna horena haddana soo saaray waxaa ka dhiman aday kugu taallaa jaamac siyaadna waad aragtaa nin gidaar yar ku naban waxba laga dhegaysamaya laakiin jaamac siyaad weyne cuqaashii aadna wax u dirtay dee warkooda horena kuwii haddana waanaa ka hadlanna adigana saasaan ku leeyahay dhammaanteenna waxaan leeyahay war hawsha hareerahaan wada qabanno yaynanu kala leexleexan oo haddii ilaahay saxaafadda ha la iska daayo oo xumaanta ha la iska daayo oo wanaaggii aanu ku dhaqmi jirray iyo ha la soo celiyo jaamac siyaadna sidaasaan leeyahay labadan xulmadna soo dhowaadaanu leenahay aad iyo aad baanu idiin soo dhowaynaynaa shirku waa salaaman yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaamaya wanaagsan ee sharafta badan salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxa la yidhi bahasha la yidhahdo eedda ninkii galay waa diiday ninkii galay diid nimaan gelinina waa diiday iyana cidna waa diiday baa la yidhi ragga iyagii odayaashii xaaladdaa la ogaa ee laysla ogaa ee caamka ahaa ka soo shaqeeyey ee gartay labada qof ee dhallinyarada ah ee la gartay ee la sheegay magacooda iyo inaanyahoodaba la sheegay soo saaray waa la eedeeyey qoysqoys baa loo eedeeyey oo reerreer baa loo eedeeyey oo waa la wada eedeeyey eeddaasna mid aannu annagu gallay oo isku wadnay ma aha waana mid meel ka dhac nagu ah oo khalad nagu ah waa maqal iyo muuqaal ha la maqlo mana aha oo ma ahayn oo uma eka oo ma jirto laba qof oo dhallinyaro ah oo jaamac siyaada weeye oo dadka wax qaban kara ah oo isa soo sharaxay oo loo codeeyey oo haddii ilaahay kuu ruwanya xag walba laga eegay ayaannu soo saaray oo garannay waa lanagu xumeeyey dadku ha sii kala batee waa lanagu xumeeyey oo waa lanagu eedeeyey oo waa lanagu fashalay eed baannu u tirsanaynaa dadka aannu ognahay taasi waa taa waxaannu leenahay sida kale waa loogu hambaliyeeyey oo jaamac weyne waa u hambaliyeeyey oo waa lagu rabaa oo annagii soo saaray baa ugu hambaliyeynay oo ku rabna oo aan ka baxayn oo ka noqonayn sidaasaa la ogaanayaa xaaladdu sidaa weeye waxaan kaloo u gudbayaa labadaa qof nimco cabdi caarshe cabdiraxiin warsamo diiriye waa maqal iyo muuqaal waa maqlaysaan waa og tihiin
dadka waa laga cawdaa dadka marka la doorto waa laga cawdaa waxa la yiraahdaa subaxda ay kursiga ku fadhiistaan baa dadka ugu dambaysa hal la gaaro markeeda waqtigeeda hal la gaaro waxaan filayaa inayan ahaanayn sidaan ku wareystay inayan ahaanayn hal la gaaro waxaan leeyahay oo ku noqnoqonaya eedaa hal naga joojo hal naga daayo oo uma aanaan dhigin ajnabi kale dad ajnabi oo kale ma aanaan dooran dad ajnabi oo kale ma aanaan dooran oo dadka ka baxsan ma aanaan dooran wuxuuna waa jirtaa oo way dhacdaa in wax la kala bursadana horena way u jirtay haatana way dhacdaa hadday se dhacdo waa la isu tanaasulaa oo waxa weeye waa la samraa oo waa la sugaa oo haddana aanu tara u samaynay oo kuwa sii waxaysan aanu beri kaga bilaabayna haddii la noolaado waxaanu leenahay hal laga daayo eedda oo hal laga daayo qalaanqalka oo hal laga daayo waddada xun ee la hayo ee la qaaday ee la marayo hal laga joojiyo intaasaan hadalkaan ugu kaga baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu odayaashan taageerayaasha ah iyo cuqaasha meesha joogta iyo meediyaha iyo dhammaantiinba aad iyo aad baan idin salaamayaa intaa waxay raacdaa xafladan meesha ka dhacday ee qiimaha iyo qaayaha badan oo ahaa xaflado istaba jooga oo ka socday magaalada Laascaanood in badan ka socday looguna ma garanaysaa xafladaha loo dhigayay gabadha la yiraahdo Nimco Cabdi Caarshe iyo Cabdiraxiim warsama deeriye sugulle dhammaantood dhammaan waxayaan labadaas waa labada aanu doorannay haddii aanu nahay jaacsiyaad labada qof baanu meesha ku doorannay cuqaashayadu waxaanu galay doorasho heer sare ah oo u dhiganta kuwa baarlamaanka oo kale waxaanu sameynay 3 cod baanu kala waxaynay haddii ilaahay yiraahdo ama 3 wareeg baanu kala marnay 3da wareeg ugu horeysay waanu galnay 4 iyo 5 iyo 3 iyo waxba la kala helay markii dambena wareeg kale aanu galnay markii dambena sidii ay u soo baxeen labada qof baa soo baxay waxayaan hadalka waxayaan cuqaasha markay dadkii kala hufeen oo kala haadiyeen waxay soo saareen labada qof ay soo saareen ilaa 11 qof ayaa codka galay oo aanu magacyadooda meesha ku haynay oo qaarkood la yiri waxay joogan meesha la yiraahdo Garowe bay joogan kamana soo qayb galin anagu qaar oo ku team barama ma la siin laakiin rag baa waxay yiraahdeen waa ku jiraan ma garanaysaa oo ku turkuteen iyo been iyo balaaya meesha laga waday marka waxaanu leenahay jaacsiyaad runta haddii la soo sheego wanaagsan tahay kuwan ordaya ee meelaha ordaya ee annaga meelahan le ma garanaysaa codna siiya codkii mar hore aanu bixinay been la in la soo sheegana maaha runtii waxay tahay annagu labada qof baanu doorannay labada qofna waxaanu maamulka Puntland waxaanu ka codsanaynaa labada qof in aanu ma garanaysaa cuqaasha kala dhigdhigeen odayaasha kala dhigdhigeen beeshii jaacsiyaad kala dhigdhigeen waxaan rabnaa labada qof in la soo dhaweeyo oo ma garanaysaa maamulku soo dhaweeyo oo sidaan aqwaashan lagu aqoonsado iyo garaadkaba saasaan idinku codsanaynaa marka annaguna waxaanu leenahay hambaliyo waxaan ka codsanayaa labadan aanu doorannay waxaan ka codsanayaa inay dadkooda shaqaaleeyaan oo shaqo u abuuraan oo shaqada qoraan ma aha inay baarlamaanka iska fadhiyaan aniga nin loodkayga baa joogo ilaa 6 qof buu shaqaaleeyay 7 qof buu shaqaaleeyay meelaha Soomaalida garan marka waxay kuwan waa kuwii dadka shaqaaleyn lahaa waxaan filayaa kuwanu inay kuwii hore ka wanaagsanaan doonaan oo shaqaaleyn doonaan dadka marka aad iyo aad baan idin wada salaamaya kulligiin maamulka iyo madaxweynaha iyo wasiirada waxaan ma garanaysaa ka codsanaynaa inaanu nimanka go'aanka iyagu halka yahay dad kalena aan la isku dayin wax kalena aan la wadin inta labada qof baa naga soo baxay anaga marka nolo tixgeliyo madaxweyne ku xigeen ka sharaxan iyo madaxweynaha sharaxanba hambaliyaan u dirayaa hasuuda tihiin ba waa salaamantihiin salaanta islaamka isku salaaman idinku salaamaya
bacda salaan maanta amarka ilaahay baa isugu keenay halka inaynu isku aragno danaheenna ku qabsanno danaheenna ku xallilanno waxaa intaa ay raacaa teeriya maalintii Soomaalidu calanka qaadatay doorashooyin baa ka socday Soomaaliya la iskuma qabsan jirin la isma gudub ordi jirin wixii farta lagu fiiqo ayaa la dooran jiray ama ha heleen ha ku soo baxeen nasiibkooda ama ha ku waadeen laakiin waa la wada saboori jiray reerka jaacsiyaad leeyahay xiriya ma kala lahayn maanta waxaan maqlayaa xiriya laascaanood laga barbarkeeda laga sameeyay horta kuwa xiriyaha sameysanayo waa ina dabaq waa la soo noqon buu yiri miyaad ilowdeen waxaynu soo maray waxaynu rag la soo maray iyo soo mudanay miyaa ilowdeen waa mada maanta jaamac siyaad waa hal mida laba maaha jaamac siyaad wuxuu qaran ku yahay qoomiyad ku leeyahay midnimo isku aragti ayuu wax ku leeyahay maanta amarka ilaahay ka sokow xafladan sharafta leh waxaanu isugu nimi Cabdiraxiin warsame diiriye xayir iyo nimco cabdi caarshe inay nooga galaan kaambayga ya sugulle waa sax waan ilaawe hadal kuma jiro waayo anigu intii dadku waraaboobay ee wada professorka noqday dibad baan iskaga maqnaa labada meel walba laga sheegay haday cuqaasha tahay haday codkarka tahay haday dhalinyarada tahay haday gabdhaha tahay labadaas aanu saboorayna inay nooga qayb galaan doorashada Garowe ka socota ama caasimada Puntland labadaas aanu nooga qayb galaya labadaas aanu saboorayna labadaas aanu wadanaa marka ay helaan ilaahayga waxay qofur raxiinka waxaynu ka baryaynaa in ilaahay ku guuleeyo amiin da habeenna way waxaan telefisonka anagu telefison baan aan Garowe dadka hadlaya arkay nin baa ka hadlayay jaamac siyaadu maagay horta odaytinimadu waana oday baa la yiraahaa odaytinimadu iska noqon maaha markaad gurigaaga dhamayso godololooyinkiisa ee meel walba iska soo awda bableeshka lala tagaa odaytinimada oo rag wax lagu la qaybsadaa maanta kuwa yaacaya dhulka wax ka sheegaya ee jaamaca baabariya iyo jaamaca baagalbeeda umul buu yiri ilowshiyo dhawaanshahan ku nacay waa ilaaween wixii loo soo galay iyo wixii loo soo guday way ilaaween laakiin baada fakaru baraasa waxa lagu dib baynu u sheekaysan doonaa waxa weeye maanta hadaynu nahay reerka jaacsiyaad la yiraaho ama aan galbeed ka nimaadno ama aan muxuu ahaa god aala ka nimaadno ama aan meel kale ka nimaadnee hal midaynu nahay isku aragtiya hal midaynu dadka wax kula qaybsan karaa waxa la inoogu yiqiin midnimo isku aragti isku qoomiyad wariyaan la ilaawi oo sidaasaynu wax ku noqonaynaa dadna wax kula qaybsanaynaa labada qof ee marba ama qofka inoo soo baxa inagoo galbinayno hareeraha ka soconna aan populationka geysano meesha looga baahan yahay yaan la gudub ordin calqaska ha la iska daayo afxumada ha la iska daayo jaamac waa jaamiciisi waxaan garad cuqaasha adkarka dhalinyarada inanka iyo inanta populationka laga sheegay wada saboorayaan oo wada galbinayaan ilaahay ha ku guuleeyo ilaahay ha ku guuleeyo garad jaamac garad Ismaaciil Ducaale waxaan leeyahay jaamac siyaad cuqaashiisii iyo codkarkiisii meel bay isugu yimaadeen way isku afgarteen isku qoomiyad iyo isku aragti bay noqdeen waxaa dhiman saxeexaagii
wixii adiga kugu xidhnaabaa dhiman ilaahay marka uu ku keeno qabiyatir waxaa lagaaga baahan yahay waad qabiyatiraysaa hadalkii intaa ayaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shirkaan aad baan u salaamaynaa dhammaantiiba labada musharax ee kursiga labada kursi ee Puntland u sharaxnaa Cabdiraxiin Warsamo Diiriye iyo Nimco Cabdi Caarshe ayaa horta ku guuleystay labada kursi ee maanta baarlamaanka Puntland ee shanta sano soo socda waxayna ugu guuleysteen cuqaasha beesha jaamac siyaad ayaa si mug leh oo baaxad leh oo deganaansho badan leh oo kharash badan iyo hanti badan iyo muruq badan iyo maskax badan iyo maal badan ku baxday uga fadhiistay sidaa darteed bay ku guuleysteen ma aha in dad la iska wato cuqaasha meelaha waxaan maqlay dad gaar ah wata aflagaadadan cuqaasha way iskaga badan tahay hadhowna way iska badnaanaysaa laakiin dul baan iskaga leenahay waayo waa dadkii dana loo idmaday bari ka maalin beelaha beel kamid cuqaashooda marka la yiraahdo adiga jifi ahaantaada lagu siiyo kursiga hal kursiye baad leedahay mid soo saar 12 baa soo sharaxaya hadda waa 12 bay soo sharaxaya caaqilka laftiisa marka dhibaatada iyo dawaa haysataa aydu waa iska haysataaba oo wax iska soo jiray laakiin dul baa loo leeyahay arrintan aad baan u mahad celinaa intii nacayday ee aflagaadaysay intii kalaba aad baan ugu mahad celinaa waa hambalyeynaa dhamaanba labada kursina waa caynka Puntland waxaan faraynaa beesha Puntland dawladda Puntland waxaan faraynaa beelaha harti maanta sidaa la idin sheegay haddaanu nahay beesha jaacsiyaad waxaanu diyaar u nahay kursiga madaxweyne ku-xigeenka ee Puntland waana mudanahay xaqna waa u leenahay dhammaan beelaha harti iyo beelaha dhulbaanta waxaanu ka codsanaynaa kursiga maanta si hagar la'aana in loogu soo dhaweeyo lagu taageero gaar ahaan beelaha dhulbaante sidaasaan u diraynaa codsigaasaan u diraynaa Cabdilaahi Cali Tima Cadde waxaanu leenahay waad maqlaysaa go'aanka jaacsiyaad waxay la tahay ninka go'aanka jaacsiyaad qaato un baa maanta guuleysanaya ninkii go'aanka jaacsiyaad ka hadhana meeshuu is dhigo oolaya waxaanu leenahay go'aanka qaado labada baarlamaanka ee la doortayna jeebkaaga ku jiraan adaana ku horkeenayna annagoo cuqaasha iyo guurtida iyo garboodka iyo talada jaacsiyaad iyagoo ku socdaan ku horkeenayna adna intaasaan ku farayaa dawladda Puntlandna waanu faray wixii la fari lahaa musuqmaasuq iyo iskarabiyaac annaga wax iyagu male iyo siyaasad waa ka baxnay wax iyagu waa wax legal ah waa wax xaqiiqo ah waa wax dhab ah waa wax cidii nagula shaqaysanaan kula shaqaynano cidiina diidan aan ku diidi karo go'aankaygu sidaa weeye garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale waxaan u sheegayaa go'aan baanu qaadanay haddaan nahay cuqaashi beesha jaacsiyaad go'aankii waad haysaa fulunun baa lagaaga baahan yahay waana aad baanu ku salaamaynaa dhammaan marti sharafta waa salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh